saddex toddobaad oo ololo doorasho ay sameynayeen axsaabta siyaasadda Somaliland kadib waxaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay guud ahaan gobolada Somaliland doorashada aqalka madaxtooyada magaalada Burco ee magaalada madaxda labaad ee Somaliland ee xarunta gobolka Togdheer dadweynaha ayaa saaka aroortii hore u dareeray goobaha codbixinta waxa la hakiyay adeegsiga gaadiidka wadooyinka magaalada Burco ammaanka ayaa aad loo adkeeyay waxaana la arkayay qaybaha ciidamada militariga booliska iyo asluubta oo gaaf wareegaya wadooyinka magaalada jawiga ayaa ahaa mid degan 329 goobood ayay bulshada gobolka Togdheer ka dhiibanayeen codkooda waa doorashadii saddexaad ee shacabka Somaliland fartooda ku doortaan madaxweynaha hogaaminaya jamhuuriyadda Somaliland ee muddada 26 sano abaadi goobaysay aqoonsi ay ka heshay beesha caalamka xasiloonida ka jirta Somaliland ayaa sabab u noqotay inay ka hirgasho dimuqraadiyad gaamurtay oo ay ku amaanaan beesha caalamku taasoo aan ka jirin inta badan dalalka Afrika xubno kamid ah madaxda komishinka doorashooyinka heer qaran iyo kuwa gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay hanaanka ay doorashadu uga socoto gobolka Togdheer sidoo kale qaar kamid ah dadweynaha codkooda dhiibanaya magaalada Burco ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan hanaanka ay u socoto doorashadu 13 bishii 2017 oo ahayd maalintii loo dareeray codbixinta waxa gobolka Togdheer looga dareeray oo codkoodii ay ka socdaan iminka si nabadgelyo ah oo dhammaan qalabkina uu si fiican iyo shaqaale ay u gaareen oo saakana ay si fiican uga bilowdeen kuyugu nidaamsan yahay shaqaaluhu tababarkii la soo siiyay si fiican ay u qaateen ilaa iminka wax cabasho ah ma hayno waxaan rajaynaynaa cabasho la'aanta ay noogu dhamaato codbixintu dadkana waxaan ku dardaaraynaa inay u dulqaataan kuyuga oo dadka samarkaad moodaa inuu ku yaryar yahay laakiin waxaan leenahay iska dulqaata waxa kale oo ku dardaaraynaa in booliska goobahan ayagana si fiican loola shaqeeyo ilaa haddana si fiican baa loola shaqeynaya booliska laftiisuna dadka inay iyaguna si wanaagsan ugu shaqeeyaan codbixinta doorashada madaxtooyada Somaliland ayaa si rasmi ah uga bilaabantay guud ahaan gobolada Somaliland magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa la arkayay saaka aroortii hore dadka oo safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta waxaana si nabadgelyo ilaa hadda ku socda codbixinta isla mar ahaantaana ma jiraan wax dhibaato oo ka dhacay guud ahaan gobolka Togdheer Ali Maxamed Boos TV ga caalamiga Universal Burco